وكا سدا جعشين ولو ودن لجعل سي الله لسا ku raaliteena raaliban ku noqon eedaysan Xasan Axmed Barre oo ku eedaysnaa dil ka dhacay deegaanka Raqas oo hoos yimaada magaalada Cerigabo ayaa gacanta lagu soo dhigay waxaana eedaysanahaasi toos ah loogu wareejiyay ciidamada ammaanka ee gobolka Sanaag iyo beesha uu ka geeriyooday marxuumkaasi waxaana munaasabada eedaysanahaas lagu kala wareegayay ka hadlay qaar kamid ah odayaasha beesha uu ka soo jeedo cidii ka soo shaqeysay iyo cidii isu soo dhiibtay waxa ahayd Muuse Ismaaciil gudihiisu waxa weeyaan iyo habar Yunus wixii halkaas maanta hawshaas ka soo qayb galay horeba waa ku mahadsan yihiin la shukr cala alwaajib shaqa loo baahnaa beesha Abdulrahmaan iyo kala waxaan leenahay marka hore tacsida waan sabir iyo imaam waa leenahay mar labaad kana cid aan u soo qabanay waa beesha Abdulrahmaan ninkaas gacanta ka dhacday ninkaas maxruumka oo ka dhashay وكا سدا جعشين ولو ودن لجعل سي الله لسا ku raaliteena raaliban ku noqon doona arrinkii nabadgelyada ee waftiyada badan iskaga daba baxeen nin shilkii dhacay dadka walaalaha kala gaaray lagu soo qabalayay madaxay waayeelkow ninkii gacan ku dhigla ahaa ilaahay shilka uu geystay waanu keenay waa ka halkan fadhiya wuxuu hadii daacad laga yahay waa lagu guuleysaa ilaahay uu ku soo guuleeyay waanaga ku keenay waxaanu faraynaa cid kasta gobolka oo wax disha in saa loo soo qabto maanta halkan waxaanu keenay Xasan Axmed Barre oo dilka geystay qoladii uu dilka u geystay walaalaha iyo beesha Abdulrahmaan waan ka tacsiyeynaya samiriye imaan baan leeyahay ninka dhintana ilaahay naxariistiisa janno ka waraabiyaan leeyahay waa ka ninkii si alla sidii ay garataan ay ka yeeshaan aan raalli ku nahay waana waajib in wax laga sugayay oo wax geystay inuu keeno ninkii wax geystay hawlgalka la galayna dadka galay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan rajaynayaa inuu ka abaalmariyo kuwii soo wareejiyay kuwii maaragtay tolka ahaa ee kadib tagay hawsha muddadii dheeraydna ka hawlgalay waxaan iyagana maaragtay ka tacsiyeynaa walaayaha kale ee maaragtay iyaguna de sabirka lahaa maaragtay oo ah dadka noogu sabirka badan gobol ahaan marka la eego xaaladahaas iyagu aad iyo aad ugu samraa waxaan leeyahay sabir iyo iimaan Allah idinka siiyo maanta ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu nagu soo guuleeyay in maanta fadhiyo sidaas la sheeganay halkan warkoodii ka cadeeyay in idinka leeyahay ku wareejiyay Chief Caaqil Xasan Faarax Jibriil oo ku hadlayay afka marxuumka loo soo qabtay eedaysanahaasi ayaa u mahad celiyay cid kasta oo ka shaqeysay soo qabashada eedaysanahaasi mar labaad iyo mar saddexaad aan ugu mahad celinayaa qoladii isku taxalluujisay ee doontay ee duurka u gashay ee soo qabatay ninkii gacan ku dhigla ahaa keentay laakiin waxa furteen jidkaas waana aaminsanahay inuu yahay jidkii aynu ku badbaadi lahayn dhammaanteen iyaduna dadaalka ay muujiyeen waa dee sidii la arki jiray waxaanu leenahay dadaalkiina idinkuna ku qaadi maysaan inayda dadaalkiinaasi uu xaggayagana wax weyn ka gooyo waa ku rajo weynahay ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Sanaag maayarka magaalada Cerigabo taliyaha ciidanka booliiska ayaa iyaguna eedaysanahaasi ku wareejiyay ciidanka booliiska ee gobolka Sanaag ninkii dhintay wayna ka wada dhintay ilaahay waxaanu baryaynaa sabir iimaan naga siiya kulligeenba kanna waxaan leeyahay nin wala dil buu ku xukumayay intayna halkaa fadhiyo maalinta dhimanaysoona ilaahay baa ku shuqul leh oo qadaray laakiin sidan si ka fiican ma jirto waladaa isku tacalluujisay ee soo qabatay ee uu ka yahay in adeerkii ruux Cali Ismaaciil Barre ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro qalbi waa hagaagayaan inaguna in dhaweyd dibtan wayna soo martay iminkana ayaamahan dambe si fiican bay u socotaa ilaahay noo wadaaga kulligeenba intii ilaahayna furay inaan ninka wax geysa iska qabanno oo wanaageenu ku jiro iyo nolosheenu ayaa fuliseen ilaahay aakhirada ka siiyo odayaashii kuwaas oo kale soo qabteena iyana maanta waxaan kaga faa'iideysanayaa iyana waa mahad celinaynaa wax garadka Cerigabo iyo ummadda gobolka degtana waxaan leenahay wanaagu wuxuu ku jiraa ninka dilka geysta ama dhibta dambi ka dhex geysta bulshada oo laga qabto waxaad nagu wareejiseen waad soo qabateen gacan ku dhiiglihii cuqaashii iyo wax garadkii ka hawlgalayna waanu mahad celinaynaa runtii waxaad muujiseen hawlkarnimo ayaad muujiseen dhammaantiin waxaan leeyahay aad iyo aad baad maxaan ku dhahay ugu mahadsantihiin
iskaashiga dhow ee aad samayseen isku duwihii iyo raggii uu kaxaystay iyo cali oo raggii ugu horreeyay halka ka baxay maanta ay baxeen aan dib u soo noqon iyo raggii intaa la shaqaynayay ee waayeel iyo dhalinyaraba lahaa waxaan leeyahay ilaa agtiisa ayaad ka helaysaan waxaad badbaadiseen bulsho dhan baad qalbigooda isku soo jeediseen gacan ku dhignay laga bilaabo saacadda taliya qaybta la wareeg adigaa la wareegaya maxaan ku dhahay cidda kale sharciga anagu horgeynayna cidda kaliya ee leh waliyu damiga uun baale oo naga fasixi kara anaga cid kale oo naga fasixi kartaay ma jirto warsame kaafi cabdirashiid aadan Somali News TV Eric Gabo